إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنه مال وإن زاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan idinkaga soo gudbi doonaa taariikhda Sheekh Axmed Didaad, geesigii Islaamka. Axmed Xuseen Didaad waxa uu caan ku ahaa hadaladiisa xaqa ahaa iyo doodihiisii uu la geli jiray baadiriyiinta diinta Kirishtaanka, taasi oo sabab u noqotay in boobabkii Masiixiyiinta cagta ay soo dhigi waayaan wadanka South Africa. If Jesus is God, I would like you to show me one verse, only one statement anywhere in your Bible, any version of the Bible where Jesus says, I am God, or where he says, worship me. And by God. Axmed Didaad waxa uu ku dhashay wadanka Hindiya 1 July sanadkii 1918. Aabihii waxa uu u soo wareegsaday wadanka Koonfur Afrika kadib markii ay noloshiisa ku adkaatay. Axmed markii uu 9 jir ahaa ayuu isagana u soo wareegsaday wadanka South Africa. Intii uu wadada ku soo jiray waxaa geeriyooday hooyadiis Faadimo oo markaas la socotay. Axmed waxa uu bilaabay dugsi waxbarasho. Markii uu marayay fasalka 6 ayuu ka baxay dugsiga lacag la'aan awgeed. Kadib waxa uu bilaabay inuu ka shaqeeyo dukaamada. Dukaankii uu Axmed ka shaqeyn jiray waxa ka soo horjeeday goob wax lagu bari jiray ardayda Masiixiyiinta ah. Ardayda marka ay ka soo baxaan dugsiga waxa ay Axmed weydii jireen kulana doodi jireen su'aalo, balse Axmed ma uusan aqoon u lahayn diimaha, sidaas awgeed wax jawaab ma uusan si jirin, uu iskaga aamusi jiray. Sheekh Axmed waxa uu bilaabay inuu wax akhriyo, waxaan uu jeclaystay wax akhriska, sidaas darteed wax kasta uu akhrin jiray, jaraa'id ahaato, buugagta iyo wax kasta oo la akhriyo maktabadaha buugagta yaalo. Habeenada ka mid ah, Axmed Didaad oo hagaajinaya dukaanka ayaa waxa uu ka dhex helay buug aad u boor badnaa, magaciisana waxa uu ahaa Idhaarul Xaq ama runtii waa ay timid. Buugga waxaa qoray caalim muslim ah oo la oran jiray Mawlana Qaranawi. Kitaabkani waxa uu ka hadlayaa dhibka ay ku hayaan Masiixiyiinta muslimiinta dega wadanka Hindiya. Axmed kadib markii uu akhriyay kitaabkani waxa uu yiri, kitaabkan ayaa bedelay noloshaydii. Waxa uu bilaabay inuu la doodo Masiixiyiintii u dhowaa, asigoona aadi jiray kaniisadahooda iyo goobaha ay wax ku bartaan. Sheekh Axmed waxa uu soo jeedin jiray khudbado aad u badan, taas oo siisay khibrad dheeri ah. Sheekh Axmed waxa uu khudbad u aaday Johannesburg, halkaasi uu khudbadii kadib ku soo islaameen dad aad u badan. Nin la dhaho Xaaj Qudwa ayaa siiyey Sheekh Axmed Didaad dhul aad u badan oo gaaraya 25 boos. Dhulkaasi waxa uu Sheekh Axmed ka aasaasay masjid aad u weyn iyo dugsiyo lagu barto diinta Islaamka. Sheekh Axmed waxaa lagu yaqaanaa doodihiisii aadka cajiibka u ahaa oo uu la galay dadka reer galbeedka ah ee khibradda dheerka u lahaa diinta Masiixiyiinta. Doodii Sheekh Axmed Didaad iyo Jimmy Swaggart. Jimmy waxa uu ahaa xilligaasi ninka ugu xoogganaa uguna caansanaa culimada Masiixiyiinta ah. Jimmy waxa uu maalin kasta qaadan jiray lacag dhan $1 milyan. Muslimiin badan ayaa Sheekh Axmed Didaad ku dhahay, ninkan hala doodin, oo waxa ay ka cabsanayeen in uu dooda ku soo guuldareysto, balse taas kama hor istaagin Sheekh Axmed Didaad inuu la doodo. Kadib
Sheekh Axmed Diidaad ayaa halkaas ka soo hoyay guul aad u weyn. Jimmy-na waxa uu sheegay mar dambe inuu dood la geli doonin Sheekh Axmed Diidaad, xitaa waxa uu awoodi waayay inuu sii wado doodda. Doodiina waxa ay ku dhammaatay guul aad u weyn oo halkaas ku raacday Sheekh Axmed Diidaad. Doodii Axmed Diidaad iyo Aniis Shuruus. Aniis Shuruus waxa uu ahaa nin u dhashay waddanka Falastiin oo Masiixi ahaa. Gaalada waxay isdhahayeen ninkani luqadda Carabiga buu yaqaanaa, halkaas guul weyn buu ka soo hoyi karaa, balse waxba uma tarin. Kumanaan jamaahiir hortooda ayaa lagu ceebeeyay Aniis Shuruus. Waxa uu awoodi waayay xataa inuu daliil u keensado hadalkiisa. Halkaasina guusha waxa ay ku soo gaartay Sheekh Axmed Diidaad. Sidoo kale doodo badan oo uu galay Sheekh Axmed Diidaad wuxuu ka soo hoyay guulo aad u weyn. Muddadaas waxaa la waayay Masiixi ama baadari awood u leh inuu hor istaago Axmed Diidaad. Sheekh Axmed Diidaad waxaa lagu abaalmariyay abaalmarinta uu bixiyo Malik Faysal oo ah mid ugu sareysa caalamka Islaamka. Sheekh Axmed Diidaad ardaydii wax ka baratay oo uu soo saaray waxaa ka mid ah geesiga qarniga 21aad ee Sheekh Zakir Naik oo dhaxlay maanta cilmigii Sheekh Axmed Diidaad. Ugu dambeyntii, Allaha u naxariistee, Sheekh Axmed Diidaad waxa uu geeriyooday 8 Agost 2005 xanuun uu sariirta la jiifay 10kii sano ee u dambeysay cimrigiisa.